بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد waxaan ku jirnaa bishii barakeysan Ramadaan marka hore bisha barakeysan ilaahay khayrkiisa ha siiyo waxaan doonayaa inaan maanta ka hadlo dhowr arrimood oo runtii dhacdooyin badan oo soo noqnoqday waxaad ogtihiin qaranka Soomaaliland maanta xaaladiisa guud markaynu nabadgeliyo laakiin waxa marag madoona oo xukuumadda imika madaxweyne Siiraayo oo hogaaminayo inta badan bariyahan dambe ay caado ka dhigatay in dadka shicibka reer awdal si taargada laga dhigto oo la cabsi geliyo oo runtii dadka qurba joogta ee muwaadiniinta ee Somaliland-ka ee muddada badan dalka hooyo ka maqnaa ee dadka muxuu ahaay Somaliland waliba wax tara ka soo qayb qaata contribution-ka ama noqoto wadooyinka ama noqoto dhaqtarada ama noqoto dhinac walba ee dalka ku soo guriyo noqday ee soo noqday ee fasaxida ku imanaya in runtii aad wax loola dhaqmo oo habeenadii markii ugu dambeysay dhowrkii habeenadii magaalada joognay dad badan guriga loogu daatay oo la qabtay oo marka laba cisho la hayeen hadii dib loo soo celinayo runtii waxaan leeyahay taas waa nasiib darro haddii qofka shicibka ee reer Somaliland iyo qaranka reer Soomaaliya oo qarankan iyo dawladnimada iyo beesha caalamkaba haddii qofka lagu tuunsan yahay in dhibaato uu wado waa in sida sharcigu yahay loo maraa waa in muxuu ahaay dembiga waa in dabagal badan lagu sameeyaa waa in la hubsadaa in qofkani uu dembiil yahay laakiin haddii dadka qaarkood haddii taarget laga dhigto oo la yidhaahdo hebel baad ku xidhantihiin iyo saasaati haddii la yidhahdo taas waxay keeni doontaa nabadgelyo darrada ka timaada gobolka awdalna Somaliland dhibad saameynaysa marka waxaan ugu digaynaa xukuumadda Somaliland war culayskan reer awdal lagu hayaa ma geeyaan reer awdal waa dadkii aasaasay Somaliland waa dad aqoon leh waa dad nabadgelyada jecel waa Somaliland xukuumadda maanta jirta awdal waxay ka raadinaysaa waxaan leeyahay xasha awdal ma jirto waxaan leeyahay xukuumaddu ha ka fiirsato shicibka reer awdal cagajugnaynta iyo cadayska badan lagu hayo taas ku dhaafaya talabaad waxaan leeyahay waad ogeydeen runtii xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddu heshiis baynu galnay heshiiska aanu galnay mararka qaarkood waxaan u dhicisoobay markii ugu dambeysay waxaanu soo saxeexnay heshiiska aanu soo saxeexnay xaq xukuumadda waxa ka saxeexay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland oo markaa iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo markaa waxaanu ka haysanaa go'aanka yiri madaxweynaha waanu ka hoos soconaa waxaad arkaysaa heshiiskaasi maanta halku marayo heshiiska anagu maalinta waxaanu ku qaadanay laba qodob wuxuu ahaa ugu horreeyay aanu heshiiska ku qaadanay wuxuu ahaa salaadiintii iyo waxgaradkii iyo beeshii caalamka iyo injooyadii iyo dadkii waxgaradka iyo dadkii mas'uuliyiinta ah reer Somaliland ee maalintaan uga hanwadaayay iyo aan horta heshiiska u qabalnay qodobka labaadna wuxuu ahaa dhaartii madaxweynaha ku-xigeenka iyo wasiirka madaxtooyada ay noogu hor dhaarteen magaca Ilaahay in madaxweynaha arrinka ka wasala waxay ku dhaaranayeen waxay ahayd in heshiiska fulinayaan anagu nooma ay sheegin tan ay maanta leeyihiin golaha guurtoodu waa muqaddas iyo golaha guurtoodu wixii waa sharci leeyahay maalinta ma ay sheegin maalinta waxay noo sheegeen in heshiiska xukuumadda ku soo dhameynayaan oo iyagu gacantooda ku soo dhameeyaan xal wax ku hadlayeen wad maqlayseen waxaasna xukuumaddu way kala socotaa waa guruubo kala socda wax heshiis imika anagu heshiista ma aanu la galayno maaha mana aaminayno waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka maanta waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka iyo cidda danaysa dimuqraadiyadda Somaliland iyo cidda jecel inay nabadgelyo ahaato Somaliland in Somaliland maanta dimuqraadiyadeeda xukuumadda maajirta ay ku ridayso runtii hogmado ay ku ridayso ay doonayso inay ka dambeyn dimuqraadiyadda dambe taan shicibka reer Somaliland uu cadeeyay waxay wasiirada qaar ku soo celceliyaan oo ay ka hadlaan xisbiga waddan dhaliil buu sheegay barnaamij male runtii aniga barnaamijkaygu waa cad yahay waxaan doonayaa barnaamijka maanta inaan laba muxuu kelmadood ka iftiimiyo anigu barnaamijkaygu wax loo dheeraanayo maaha barnaamijkayga anigu waxa ugu horreyn doona shicibka reer Somaliland waxaa caddaynaya inaan marka horeysa soo celin doono muxuu ahaayey haybadii iyo qarannimadii ay Somaliland lahayd ee hore looga bartay lambar 1 waa taas waanu soo celinaynaa taayada labaad barnaamijkayga waxaa ka mid ah inaanu garsoorka dalka inay madax bannaan doonaan qodobka saddexaad waxaanu ballan qaadaynaa in madaxweynuhu haddaanu anigu soo baxno inuu wixii su'aalaan ka jawaabi doono shicibkiisana fagaaraha kala hadli doono taana waanu ballan qaadaynaa barnaamijka ka mid noqon doonta waxaa kaloo aanu ballan qaadaynaa in hantida qaranka runtii imika boobka lagu hayo
in wixii shifaa sharci darra aan lagu qaatay oo dhan inaanu gacanta dowladda insha allah haddaan doono haddii ilaahay idhaahno kusoo celin doono waxaanu ballan qaadaynaa oo barnaamijkay ku jiri doonta soo midnimada shicibka reer somaliland oo maanta aad ogtihiin halkay ka taagan yihiin muxuu ahaye gobolada bariga iyo galbeedka dhibaatada taagan inaanu tusi doono in somaliland yahay qaran dadku ay wada leeyihiin oo ay u midaysan yihiin anficiisa iyo dhibtiisa ay u midaysan yihiin maanta inaga somaliland inta qodobada muxuu ahaye maanta dalkeena ka dhiman ee barnaamijkay ugu horeeya intaasaan hadda u iftiimanaya ragga le barnaamijka wadan male intaasaa wadda runtii ugu horeyn doonta dalka u dambeeya waddana anagu waxaanu ballan qaadaynaa in saxaafadda ay madax bannaan noon doonto oona caburinta iyo cagjurinta maanta lagu hayo aan lagu hayn doonin madaxweynahoogana aan lagu horjoogsan doonin su-aalahay doonana ay weydiin doonaan intaasa kusoo koobiya wixii su-aalana waxaa kaloo kulley kusoo koobi lahaa hadalkayga intaa wixii su-aalay aad weydiinaysiina diyaar baan ahay gudoomiye axmed gudoomiye axmed numiseed bal heshiiskan la galay ee aada la gasheen xukuumadda iyo saddexdiina xisbi qaran muxuu u hirgelilayo ilaa imikada hortaagan oo caqabad ku ah runtii heshiiskaanu galnay sida waxay hortaagan xukuumadda oo ilaa imika muxuu ahaayey aan heshiiskii fulinin iyadanu ka sugaynay bay ahayd in heshiiska fuliyaan ilaa imikana iyadun baan uga fadhinaa in heshiiska fuliyaan laakiin waxaa imika muuqata inay iyadu guruboo kala baxday oo inay wax heshiiso aba yaarday halkaa kasoo naascadi jirin markan ay maanta hadlayaanna shalay hadalka shalna wuxuu daaraa waxaa soo dhow beesha caalamka ee somaliland ka caawinaysa dimuqraadiyad barna way yimaadeen barna way iman doonaan markay maqlaan beesha caalamka ayay siday xal u hadlayeen ad arkayseen waxaanu heshiiska u seexnay bay yidhahdeen markaan aragnay culayska beesha caalamka naga saar markay beesha caalamka timaadana afbay ku hadlayaan markay beesha caalamka ay baxdana afbay ku hadlayaan laakiin hadda anagu wixii ka dambeeya ma aaminayna saxiix waa ogaan maayo dhaartii horena waanu ku aaminay magaca ilaahay waanu ku aaminay bulshadiina soo cadaadka badanna saarteen runtii waanu karaamaynay wixiina waxba way ka socon waayeen gabadhan ka timid gabadh ka socotay midowga yurub oo saddexda xisbi qaran hargeysa shalay iyo kula shilaysay maxaa go-aamo isla gaadhay runtii shalay waxaan joogay boorama laakiin waxaa lagu wada hadlaya waxa weeyaan si somaliland doorasho u leedahay waxaad sheegtay in shalay toolo ay hadleen madaxweyne ku-xigeenka iyo xisbiga talada haya ee kulmiya oo gudoomiyahoogii jooga wasiirka arrimaha gudaha fariimahan jabaadah ay wasiirka arrimaha gudaha somaliland uu idin mariyey warbaahinta sidoo kalena xisbiyadiina mucaaradka wuxuu ku dhaliilay inaad hadeer jeer uun dhaliil iyo caytan unaad warbaahinta la hor joogtaane ee aydan talada dalka iyo hogaaminteeda aydan wax toosin ah oo sixid ah aydan ku lahayn kolkaa maxaad arrimahaasi iyo hadalka wasiirka arrimaha gudaha somaliland kasoo edha kaga jawaabaysaa bismillahi raxmaan raxiim wadanta warcadde hanjabaad wadda ka jawaabi maayo muxuu ahaa laakiin waxaan ka jawaabaya caydan runtii wadda waxaa nasiib darra ah kulmiyo maanta la xisbiya mucaarada caytimi haddii ay jiraan xisbiyada mucaaradka maanta muxuu ahaye wax cay oo haba yaraatee xisbiyada mucaaradka ka soo baxay dee inagu warbaahinta inay dib u soo celisaan bay ahayd waxaad ogeydeen kulmiya markuu mucaaradka waa kii keeshiriga dumarka cabiri jiray waa kii dhengadaan kaga soo saarana odhan jiray anigu weli halkii dumarkana maanu gaadhin dhengadiina maanu gaadhin anigu waxaanu sheegaynaa uun kelmadda quriya maanta ka gubanaya waxa kelmadda airportka kelmadda airportka maalinta dhiban ka idhi waxay ka mid tahay kelmadaha tifiyada ka baxay ee ay madaxweynaha iyagu ku bahdilayaan wasiirada ugu yimaayada airportka taa baan anagu yar iftiiminay laakiin weli caymay islama gaadhin lagamana yaala halkii gaadhin inaan gaadhin runtii waxaan isla leenahay anagu horta markay noo imanayaan de gudoomiyaha markay maalintii dhaweyto de gudoomiyaha xisbiga iyo xogeeyaha guud iyo madaxweyne ku-xigeenka markay nala joogaan runtii waxaan ayaguna noo sheegeen in go-aankaasi xukuumad ahaan ay ka wada socdaan oona haba yaatee oona heshiiskaasi dib daba usoo noqonayn laakiin haddana waxaad moodaa in kolba qoladaan wax la seexayno go-aankooga aan u fulaynin taasna waxaan u malaynayaa inay muxuu ahaye culayska weynaya ku dhacay dee xukuumadduna wada soconin khilaaf waxaa la sheegayaa in ay inta badan xukuumadda ama dadka taageerayaasha xisbiga muxaafidka ah iyo xukuumadduba ay leeyihiin haddii uu diyaar u yahay guddoomiye cira inuu ay doorasho dhacdo muxuu isku casiri lahaybay inta badan yidhahdaan arrinkaas sii doortaa guddoomiye adigu de kulle guddoomiye taas waxay u baahan tahay waxay ku yarfiicnay baan malaya in guddoomiyaha la weydiiyo axmed munaser haddaan ku weydiiyo run ahaantii waa la heshiiyey arrintii saddexdiina xisbi qaran iyo xukuumaddii waad heshiiseen in golaha guurtida somaliland la hordhigo uunbaa hadhanay
maxaa ilaa arrintu iminka golaha guurtida somaliland loo hordhigi laayahay iyadoo heshiiskii aad ku gaadheen loona uu hirgeli laayay aniga maalintii hore heshiiskaan saxaxaynay go-aanadii heshiiskii aanu la galnay ka mid ahay in iyagu xagga golaha guurtida ay ku tagaan way hawsha kasoo dhamaystaan ilaa iminkana inay golaha guurtida tagaan way hawsha kasoo dhamaystaan anigu iyagu ma ka sugayna laakiin ilaa iminka waxba yaraatay ay ku dhaqaaqeen ma jirto garaanta halkan bay kusoo noqonaysaa maalin kasta taasina waxa weeyaan waa iyaka ayaan xukuumaddan maanta jirtaa iyaka ayaan rabin inay dalkan doorasho ka dhacdo horeyna kulmiya markii uu muxuu ahay talaa dalka u qabsaday u horeysay iyagu waxaa kasoo yeelitay mararka qaarkood inay odhan jireen dowlada naga dambeyn mayso waxaan malaynayaa inay u haystaan in qarannimada somaliland iyagu maanta ay ku xidhantahay laakiin somaliland waa qaran jirina doona shicibkuna iyakaa keensaday inay dalkan halka soo gaadho cid gacanta ku baabayn karta iyo cid meelkin kale kageentaan ma jirto waxaan looga fadhiyaa xukuumadda maanta jirta inay si degdeg ugu dhawaaqdo xilliga doorashada qabanayso gabagabadii maxaad baa ujeedinaysaa bismillahi raxmaan raxiim marka hore kulley waxaan leeyahay shicibka reer somaliland nabadgelyadeena arsaan gaar ahaan reer awdal waxaan leeyahay waa in wixii qarannimadeena iyo jiritaanka somaliland dhaawacaya waa inaad iska ilaalisaan oo aad inagu dhinac wadaba uga soo jeesataan wixii buunbuunina ee xukuumadda maanta jirta ay buunbuuninaysan waa dhinac uga soo jeestaan intaas kusoo gudoomiye go-aan baad gaadhin axsaantatiin axsaabta mucaaradka go-aanka iyo muxaafadku ood ku heshiiseen muddo in aad ku dhacdo doorashadu isla markaana isla qaateen arrintaas khilaaf bay ku keentay xukuumadda dhexdeeda iyo guurtidana go-aan bay qaateen sidee laysku waafajin karaa go-aankii guurtida iyo go-aankii axsaabta mucaaradka bismillahi raxmaan raxiim waa way dhib yartahay saa laysku waafajinayaa runtii golaha guurtidu dee guddo kordhinta xashada waxay sharci u leeyihiin markay qodobkii 3 ood garanaysaan duufaanada iyo balaayada iyo masaa'ibta maanta somaliland kama dhicin anigu markaanu aragnay inayna doorashada waqtigeeda ku dhacayn waxaanu isla garanay xisbiyada iyo xukuumaddu in 2016 doorasho dalka ka dhici karto intan ay guurtidu ku siyaadisay waxa weeyaan xukuumaddu sida ay u dhamaysanayso sifo meelo badan oo la maraa jira haddii maxkamadda u gudbinayaan iyo haddii madaxweynuhu digreeto usoo saaraya xilligu doorashada qabanayo maadaama maanta madaxweynuhu leeyahay hawshaasi waa hawl u taala madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland inuu go-aanada ka soo saaro hawsha maanta isaga dul hoganaysa arrinta haddaan ku weydiiyo dad baad sheegtay in degmada boorama laga qabqabtay dadkaasi maan lays odhan karin dembiyo eedaysanayaal ama ciidamadu dembin baa lagu soo eedeeye baaritaan baa la sameyn hadhow tolana waa laiska soo dayn bismillahi raxmaan raxiim hadda wixii dembi gala hadda muxuu ahay dalku dad dastuur buu leeyahay qofka qarannimada somaliland ama ha noqoto muxuu ahay dhinaca kale nabadgelye khalkhalanaya in loo yeedho si muxuu ahay inta loo yeedho wax la weydiiyo haddii dembi ku caddaado la xidho de waxa weeyaan waa wax waajiba laakiin qaabka dadka loo galayo hadda loo galaya maaha qaab runtii saxa waxa weeyaan shaksi dibadda ka yimid in guriga inta loogu daato argagax la geliyo ubadkiisa iyo caruurtiisu maaha taasi sax laakiin qofku isagoo suuqa jooga waa in loo yeedho waa in maxkamada waanan looga soo qaadaa waa in su-aal la weydiiyaa waa in dabeedna dembigu markuu ka cadda waa in maxkamada la geeyo dabeedna waa in la xidhaa qofka hadduu dhibaato geystay laakiin tan maanta ka jirta gobolka awdal somaliland runtii kama jirto waa taargad gaar aan wax lahay awdal waxaad ka oga somaliland u oga shicibka reer somaliland way dheerisiin awdal waa hoygii nabadgelyada laakiin anu waxaas leeyahay xukuumaddu way ka badbadinaysaa awdal way ka badbadinaysaa waxayna uga badbadinaysaa in dadka dibadaha ka yimid in taargad laga dhigtaa waxay keeni doontaa nabadgelyo darre keentooda nabadgelyo darrada bua halkan ka dhacdaana waxay saameyn ku yeelan doontaa somaliland oo dhan marka waxaan leeyahay arrintaa loo fiirsado cidda dhibaato geysanaysana waa in dhibaatada ay leedahay lagu qaadaa ciddaan dhibaato geysanayna waa in xorriyaddooda loo daaya waa in la qaadin